sanadkan bishiisii labaad maalinteedii sideedaad waxaa la doortay madaxweynaha hadda talada haya ee Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 16 bari kadibna wuxuu doortay shakhsiga uu arkay inay wada shaqeyn karaan si wada jiraan xaaladda dalka wax uga bedeli karaan inta kadib xukuumadan curdunka ayaa noqotay mid shacbiyad ballaaran ku dhexla shacabka Soomaaliyeed iyadoo la soo baxday dardar cusub iyo niyad wanaag ka duwan wixii aanu hore khibrad ugu lahayn waxaa durbaba bilaamay isku day ballaaran oo cadowga ku damacayay inuu ka hortago xukuumadan cusub ee dhalatay oo shakhsiyaad badan oo kamid ah lagu tuhmiyay daacadnimo waana arrin si toos ah uga hor iimaanaysay danaha cadowga oo iyagu arkay inay tahay dawladdan cusub fallaar xaggooda ku soo socota waa kan madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ka hadlaya isku dayadii ballaarnaa ee lagu damacay in lagu burburiyo dawladdan saddex bil shaqeyn shacabkeenu waa shacab wanaagsan waa ognahay laakiin mar walba waxa ku dhex jira shacabka iyo xukuumadooda ama dawladooda iyo madaxdooda waxa ku dhex jira danley yaa ku dhex jirta danleydaasi waxa taagan kaliya ma aha waxa weeye wax soo taxnaa anugu maanta qalbigayga aan kala hadlaya waxaan idin sheegayaa xukuumaddan marka la ansixiyay 7 bilood ka hor iyadoo hal bil iyo bar jirta yaa waxaa lagu shiray waddanka dibadiisa lagu shiray oo la yiri dawladdan waa in la mucaarado waa in laga hor yimaado waa in mooshin laga keeno waa xaqiiqo weyn maba dhalanba dawladdii mana shaqaynin weli waxay ku jirtaa waxbarasho ku jirtaa markii waxa laga hor keenay mucaaradnimadiina hadda way socotaa iyadoo indha lahayn dhagana lahayn oo ah dhaqan hore u jiray nasiib wanaagsan wajiyadu cadowgu adeegsado qorshahan ayaa noqday mid fashil u horseeday halka dawladda Soomaaliya ay ka sii heshay taageero aad u badan wajiyadu cadowgu adeegsado qorshahan ayaa waxa kamid ah Cabdirashiid Xidig Cumar Xalweyste iyo qaar kale oo badan oo mar hore shaabad qaa'inimo madaxa uga taalay durba shacabka Soomaaliyeed waxay garteen ujeedadooda waana sababtii soo dadajisay in qorshaha cadowgu kala dhantaalmo inta kuma si ekaane waxa jirtay shabaqyo ballaaran oo ay dhigeen cadowga oo ay kamid ahayd arintii qalbi dhagax iyo waxay ugu yeereen igu sawir oo dhammaan barag isugu jiray fanaaniin iyo wariyaal lacag ku soo qaateen qaabkii loo faafin lahaa laakiinse dhammaantood daadka ayaa qaaday oo way fashilmeen intaasi waxay ahayd hordhac kooban oo ku saabsan isku dayadii fashilmay ee cadawga haddaba baraha bulshada ayaa iminka noqday goob kale oo loo adeegsado faafinta daacayadaha ka dhanka dawladdan cusub waxaa jira shakhsiyaad ballaaran oo lacag ku soo qaatay qaabkii loo faafin lahaa been abuurada ka dhanka dawladda shakhsiyaadkaasi waxaa kamid ah nin aad u taqaanaan Daahir Calasow balse anigu waan u aqaan Dameer Calasow iyo nin bariyahan u dambeysay sakiin gadaal ugu qarsooneed la soo baxay oo aan mar isweydiiyay alla badana lacagta la soo siiyay wuxuuna maalin walba aflagaada toos ah u geystaa madaxda qaranka waxaad moodaa in la yiri sadar walba lacag baa ku fuusha waa Jamaal Maxamed Cusmaan bilowgii bishii la soo dhaafay ayaa waxaan ku sameeyay baaritaan iyo dabagal ay iga caawiyeen qaar kamid ah asxaabtayda oo wariyaal u badnaa waxaan helay muuqaalo badan iyo qoraallo uu ku qoray warbaahin oo u shaqeeyo waxaan iminka idin soo gudbinayaa muuqaal uu Jamaal Maxamed Cusmaan uga warramaya TV-ga u shaqeeya ee Channel 4 waxay yihiin ururka Al-Shabaab aniga ayaa idin soo turjumay waxayna u dhacaysaa sida tan su'aalaha la weydiiyay su'aashii ugu horreeyay la weydiiyay ayaa ahayd waa maxay Al-Shabaab wuxuu ku jawaabay Al-Shabaab waa group islaamiga oo maamula qayb badan oo kamid ah koonfurta Soomaaliya iyagu tiradoodu waa inuu dhaxaysa ilaa 10,000 ilaa 20,000 oo ciidamo ah kuwaas oo aad u tababaran sidoo kale leh akhlaaq wanaagsan rabana inay u dhintaan fikradaha Al-Shabaab su'aasha labaad ee la weydiiyay ayaa ahayd xaggee ka imaadeen Al-Shabaab waxay yimaadeen sanadkii 2006 markaasoo Itoobiya soo galeen Soomaaliya si ay ula dagaalaan ururkii midowga maxaakiimta islaamiga kuwaas oo ahaa islaamiyiin maamulayay caasimadda Muqdisho markii Itoobiya ay ka guuleysatay ururkaasi Al-Shabaabku ayaa yimid iyagoo dhalinyaro u badnaa kana wax qabad wacnaa ururkii midowga maxaakiimta Al-Shabaab bilowgii waxay heleen taageero badan kuwaas oo aan rabin in cadowgeena Itoobiya ay maamulaan Soomaaliya waxay heleen taageero badan oo dhanka shacabka ugu dambeyntii waxay ku qasbeen Itoobiya inay Soomaaliya ka baxdo sanadkii 2009
سؤال saddexaad la weydiiyay Jamaal Cusmaan waxay tahay iyagu ma al-Qaacida dhamaan shabaabku waxay qaataan go'aano ku dhisan siyaasadda dalka laakiin se iyagu waxay sheegtaan al-Qaacida dhamaantii waxaan ka qayb galay xaflad ay ku magacaabeen inay ka tirsan yihiin al-Qaacida waa boonta kala qaabku oo xafladaas u tagay waa sheeko kale wuxuu leeyahay arrinta xiisaha badan ayaa ah in la noqdo al-Qaacida maaha wax sahlan waxaad u baahan tahay inaad tahay qualified si aad uga mid noqoto shabaabkuna waxay tuseen al-Qaacida inay ka mid noqon karaan xubin ka tirsan ururka al-Qaacida shabaabku waxay helaan taageero badan oo uga imaada ururada jihadoonka ee caalamka ka dhisan al-shabaabku waxay maalgelin fiican ka helaan ururka al-Qaacida waxaan su'aasha afraad la weydiiyay waxay ahayd waa maxay dhiirigelinta ka dambaysa weerarkii ay ku qaadeen moolka waxaan weydiiyay ayuu yiri halkan si fiican la eega si fiican waa inaad ila eegtaan qaybtan waxaan weydiiyay al-shabaab sababta ay u weerareen Westgate waxay ii sheegeen oo galay had mujidaan hadalkii waa uu ka gabanaya sheeko kale oo galay wuxuu leeyahay waxay og yihiin uu leeyahay in Westgate ay tahay meel muhiim ah isla markaana ay cadaan ku aadaan sidoo kale ay tahay meel Kenyaanka dhaqaalaha leh ay aadaan iyo siyaasiyiinta Kenyaanta ah iyo xubno ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale Israa'iil marka boontiga arrin u soo laabta waxay tahay dib ugu soo celiyo canjaladan fiidowga markuu leeyahay waxay ii sheegeen isagoo markaas baqaya inuu baahinta caalamka u sheego warkay u sheegaan mar labadan dib u daawada qofkii af Ingiriis fahmayna kulli waa fahmi karaa markuu halkaa sheegay oo waxay ii sheegeen yiri waa uu ka booday oo waa uu ka gaabsaday oo wuxuu si direct ah ugu booday waxay og yihiin al-shabaab waxay og yihiin in Westgate ay tahay meel muhiim ah sidoo kale cadaanku aado Kenyaanka lacagta leh aydan sidoo kale siyaasiyiinta Kenyaanka iyo xubno ka tirsan dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale Israa'iilba iyagu waxay u ahayd meel muhiim ah oo target u ahayd waana sababtii ay u weerareen waxaa sidoo kale xoga ka helay asxaabteeda oo ay qaarkood ku eedeeyeen inuu xiriir toos ah la leeyahay ururka al-shabaab iyo in wariye kamid ah wariyaasha Muqdisho lagu dilay wax ka oga nasiib darase wax cadeyn oo muujinaya arrinkaasi maan helin iyadoo shakiga badan ay asxaabteeda ugu beereen ayaa waxaa si kadisa indhaha ugu qabteen sawir kofara oo u saarnaa page-ka uu leeyahay waxaan dib u baaray taariikhda uu soo dhigay waxayna ahayd 19 November 2015 waxaan is weydiiyay sababta ku kaliftay muddo inta laag inuu sawirkaasi ka qaadin bartiisa Facebook-ga waxa ugu sii laba kaclay shakigii aan qabay waxaan dib u la xiriiray asxaabtii xogtaasi siisay waxayna intaasi igu sii dareen in Jamaal uu yahay ninkii suurta geliyay in Cali Dheere wareysi laga qaado iyadoo warbaahinta dalka ka shaqeysa aysan awood u lahayn inay la xiriiraan staafkiisa iska badaa Cali Dheere ugu dambeyn wixii qarsoon allaba og balse saasaantiisa waa mid shaki badan abuuri karta mana ahan mid aan sidaasi fudud uga daba hari doono waa saaxiibkeen Cabdirasaaq Gumeysidiid oo idin leh dalkeenu cadawga ka xurba nabaadiino